haddii iyagu dhaqan mucaarad oo quman oo birinta midka waa haddii ilaahay siiyo mucaarado ku imaanaysa dhaqan quman aysan horseedin iyo aadaab iyo anshax siyaasadeed anshax qofeedka hadli maayo aysan samayn iyagana waxaa imaan doona kuwo oo gabarkaaban u fadhiyo oo waxay dhihi jireen oo xoogaa lagu daray iise yeeli jireen oo xoogaa lagu sii kordhiyey ku yimaado marka fariinta aan rabo inaan diro waxa ay tahay wallaahi waxaan isqaadasho ah inaanay noo furnay oo aan la kala adkaanayn oo ka kaa horeeyo oo qaawiso aysan labis kuu noqonayn kan ilaahay soo wado celin tagtana aadan ku guulaysanayn marka waxaan rabnaa annaga dowlad ahaan hadda waxaan wadnaa hanaan ah isugaadin waxaan damacsanaha qorshe ahaan waqti dhow aad arki doontaan hanaan isugaadin ah marka dadka hadda oo dibadaha inta tagay aan dareemayn inay sii fogaanayaan waxaan leenahay meeshaan noo baleynaysin ma jirno inaan wax sii yeernaan rabnaa in la isu yimaadaan rabnaa yani maxaa idhahda baabuurka isliidkaa laga badini haddaan la yeelinin waxay yidhahdaan soomaalidu laba dhaxal isku haysato intay isu jirtaa lama yidhahda dadkan oo dowladda xukunka ku haysto dadkii nala lahay waa annaguna waxaa nahay dowladda kaliya ay adduunka ku leeyihiin waxa soomaali mucaarada arkaysaan hal wasiir warfaafineeda jawaan daahir maxamed geelaa la yidhahdaa ogaan hal wasiir warfaafineeda jawaan khadiijo maxamed geeliyaa la yidhahdaa كوار هذا الحويني اللي رسمه وعديد وقشة محمد عبد الله فرماجة اللي لكن يقول وشير ليال وضد وحان هينا وحكوله أو نلاله أو يلان جري يلان كرجلت لكن أنا قلنا ما ممكن إنه نروح ما نروح ما نروح هنا iyagana sugitaanka iyo maaragtay inuu ka xumaado oo dhalay karka ay ka badiyaan ma aha isku soo duuduuba taas waa tan siyaasadda lixdan wixii hayso waan hayso shaki waa jiro sacashada dowladnimada soomaaliya soconaysa lixdanka way jirtay hadday jirtaa laakiin markastay ku fitagto way kici jirtay haddana waxaan rabnaa inaanay kufin si aysan u kicino hadda way taagan tahay inaysan kufin baan rabnaa oo la isku garabsado taas marka halkaas kaga baxo waxaa kaloo hayso xaalad amni oo adag ولكن مركز لحدة كان هيسن لحدة مركز اللي كتبه طليان الإنجليز إذا ما ضروا إلى تجار ويل سومالي أنا مرة ونلقى المحكمة بحاجة مرة انقلاب اسكت مرة انقلاب كويسو هي كنا صدقنا اللي هو ما نكتب لكن هذا إذا ما يجري يعني الجوال ما كان يعني قعدت كويس يضرب وعلى سكر أماكن سكت لقى هلا أيهان وتدخل الصومالي وشركة الحلو وكهرباء أو شيء رتي سؤال مهم وسويتي waxa iyagu hirgalay iyo maaragtay dadkay dileen iyo waxyaabaha noocaas iyo anagana sadeen waxaa naga diyaarsan dowlad ahaan si loo heshiiyo marka runtii dadka xoogga dhibka ugu badan oo ka socda xagga amniga waa dad dhalinyaro ah dadka meesha fadhiyana waa dad dhalinyaro ah marka iyadana sadeeda waa mustaqbalka wax culays ah iyo xaadirka joogtada iyo buritaba wax culays ah waxaa la rabaa marka dhalinyarada inay haddii annaga joogno culayskeena aanay ku xalismin ilinka culayskiina inay ku xalisataan waa laga gudbo haddaan laga gudbin arrintaas amniga ma soconayso waxaa kaloo iyadana waxay daawinayeen xiriir caalamiga oo maalinkan gobonimada qaadanayna ilaa maantay xirmo kasta oo taariikhda aadanaha ah culays aan ka dhexlayno laakiin culayskaas marar badan aan u bedeli karnay fursado aan wax ku dhisano aan ku soo baxno dunidana nagale la yaab malaha laakiin waxaa la rabaa annaguna dantayna inaan kasoo dhex baxsan adduunka sidoo kale ma wada noqon karno kamana wada adkaan karno laakiin waa la mucaamali karno caqliyadda dhalinyarada aan ku hatarina waxay tahay inaad ka fikirtaan dunida maxaa is kaashan karaa dariska maxaa is kaashan karaa maxaan ku aleexan karaa maxaan isu qaadan karaa maxaan isu khilaafsanaan karaa haddaan iskhilaafno leebal kuu lahaana arrimahaas baan rabaa inaan idin idhaahdo
waxaan rajaynaa doctoorka iyo daayarta Soomaaliyeed wax baratay